dowladii musuqmaasuqa maxaa ka dambeeyay dowladii militariga kadibna maxaa ka dambeeyay qabaa'ilkii isleynay hayo isku xisaab waa meeqa sano 9 sano oo ay u bixiyaan musuqmaasuq 22 sano oo shuuciyad iyo hanti wadaag cilmiga ku dhisan ah oo aan aqeedadeena waafaqsanayn 30 sano oo ka dambeysay oo burbur iyo baaba ah marka waa 60 sanatan waxaynu u dabaaldegnay maanta 60 sanatan yatihuna fil ard لحدن سنة أو ورير سنين خطبة وحكوا سابسين لبعض رماد أسبوعا وتأكتهينه وحكوا استيسين هاي تاريخنا وكله أسبوع حرية الصومالي ده ما هذين Soomaalida jamhuuriyaddii labada gobol ahayd ama ha ahaadeen Djibouti labadii kale ayaga maalin astaysan ma ayna helin intii kalena way sii burbureeno maanta meesha ay marayso waan ka warqabnaa waxaan soo qaadanay marka quraanka cajabsanidiisa mar walba oo la joogo arrin munaasab ku ah waxa markaas taagan ayaa laga dhixilaya khudbada hore waxay ku saabsaneen marka ummad gumaysi u haysan jiray oo gumaysigii ka xorowday oo markii ay xorowday meeshii ay xurriyadaasi macnaheeda intay fahmaan ay ka faa'iideysan lahaayeen meeshii maaleen ahayn inta u dhaqaaqeen wareer iyo ka bixi waayay nolol xumo taas markii la fiiriyo waxay u eg tahay xaaladeenna oo kale xurriyad inaan gaarnay oo gumaysi aan ka xorownay 60kii shaki kuma jiro laakiin si isbuuc horeba aan sheegnay maanta xageen joognaa maxaan se xurriyadii kadib samaynay qolaya reer banu Israa'iil oo quraanka aad uga sheekeeyo waxa gumaysan jiray fircoon quraanka inooga sheekeeyay gumaysiga sida uu sameyn jirayna waxay ahayd wuxuu gowrici jiray wiil kasta oo u dhasha gabdhahana uu iska deyn jiray nabi muuse ilaahay soo saaray markaas fircoon intuu la hadlay wuxuu ku yiri waxaan kuugu imid أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم دات كان أتجمعين سحروتك الله ينس أنت أسكت يسو حريتها جارين أنا يقول رجوا إسكتناف هذه الصراع بعد حمري ساحر بعتها أنت هتكي معتي مدة كبعدي هذه قد هوش هسي أي سعوتي إلهي رب بني إسرائيل وقر جاريو فرعون بيا أنت اللي قد حريدي أيو وقر قومي رب بني إسرائيل كي فرعون لقاها لاقي محل ربي مركب inay ilaahay u mahadiyaan nabi muuse waxa lagu yiri reerkaagan reer banu Israa'iil ah ilaahay uga mahadiyeen xusuusi maalmihii nicmada waa si hadaan isu xusuusinayna maalmaha xurriyada laakiin siday ahayd si aanan hadaan u qaadan waa mushkilo nabi muuse waxa lagu yiri an ikhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wadhakkirhum bi ayami illah yaani qoomkaaga ka bixin mugdiga ay ku jiraan oo gumaysiga iyo dib u dhaca wadhakkirhum bi ayami illah maalmaha ilaahayna xusuusi maalmahan marka hadal xusuusinayo oo leeyahay maalmihii xurriyada Soomaaliyeed waxay soo hosgalaysaa wadakirun bi ayyaamillah maalmaha ilaahay oo la xusuusiyo quraanka ka sheekay marka waxa la yiri reer banu Israa'iil waxaad ku tiraahdaa waxaad xusuusataan nicmada ilaahay wa idna jaynaakum min aali fir'auna wa id maxayta id wa waqti mogta wa zaman wa xilli hadda inaga soo xilliyayna ma astaysana maalinta midalan 26 Juun 27 June of Djibouti ah 21 July oo ah maalinta yaani midowga ummadda Soomaaliyeed iyo xurriyadii waa maalmo wal is xusuusinaya waxaad xusuustaa in maalintii ilaahay uu idinka badbaadiyay fircoon idna jeenaakum min aali fircoon yasumuunakum su'al adab muxuu sameyn jiray yudabixuna abnaakum wa yastahuna nisaakum fi dhalikum balaa min rabbikum adim nicmadii loo sidii xali wa id farqna bikum al-bahra ma xusuusataan xilligii aan badda idin dhambalnay oo markuu fircoon soo eryanay oo asxaab Muuse ay lahaayeen falamma tara al-jam'aan qala asxaab Muuse inna lamudrakun alla waana la soo gaaray qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin ilaahi baa wadayna siinayaha absanina oo nabi Muuse u shaado waxa ku dhufataa badda oo ku dhuftay fanfalaqa fakana kullu firqin kadawd al-azim oo fircoon badda intuu soo galay asay ciidankiisii la isku furay biyi oo uu ku fatahmay oo biyi ay qaadeen وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إذن كو أجيدين آل كالمرسي
nabi muuse waxa loo ballan qaaday kitaabka tawrada in la soo siin doono waa la soo siiyey waa nicmo hadda inaga Soomaali hadaan nahay Talyaaniga oo koonfurtan gumaysan jiray wixii dhibaato uu ka geystay gaar ahaan gobolkan Shabeellada Hoose waa tii khudbadan aan ku soo qaadanayna waxa la yaqaan reer Shabeellada Hoose ay yaqaanaan kaliya la yiraahdo kaliya asal Soomaa muxuu ku baxay asaylahaasi Talyaanigu baa dadka sida hadda caratuurka markuu biga soo fato intii carada jawaano looga buuxiyo biyaha lagu celiyo kale ayaa lagu celin jiray dadka isticmaalku soo dadka yeeli jiray kuraas amala dadka loogu fariisan jiray kursi shir hadii la galay koox baa Allah marka forso markaas siyaarka lagu korcabaya 3 saacadood 4 saacadood shirka intuu socdo marka dhibaatada yasumuunakum su'al cadaab dibkii umadan loo soo geystay awowiyada iyo taariikhdii laga qoray akhriya dadkii noocaas ahaa wax la dagaalamo wax la wado Soomaali markay man nala joogaysaan ayay noo fikiraan waxay dhaheen waa idin ka tagnay xurriyad baan idin siinay waa kaas xurriyadna ma ayna siinin inayna siin waxa uu daliil ah ayagii la baxay maahine qawaaniintoodii la dabaqaayay waxa uu lagu fariisay kuwa Soomaali ah waxa la ka sii wada oo marka hadii fikirkiisa meesha uu yaalo ani maxaan ka xoroobay xornimadii la qaatay ee la gaaray waa kaas bas hadda waxa inooga sar xurriyadii dadkeeno iska jidbaysan bas meel la joogo iyo wax la haysto iyo waaqic sidoo yahay iyo ummadda say u baabaasan tahay ma bal xusuustab halkan baa waxa intii fanaaniin la soo safay waxa leeyahay hayo ku cilciliya goormaan liibaanay koodii juu may ku hayaan war adeer goormaan lulanay 6 saac war waxa ma inaan lulanin aana way naga daateene hadday u baahan tahay marka inaan lulano maxay yeelay markaan xorownay baarlamaankii ugu horeeyay shareecada islaamka ha la isku dabaqo markii la yiri way ku qoslaan waxay dhaheen nin waalna tahay naga tag hadii aan shareeca isku dabaqno mushaarka yaana siinay baarlamaanka hadaan nahay iyo ciidanka iyo mushaarka yaana siinay dawladihii reer galbeedka ee na caawinay ee na kaalmeynay maxay noo kaalmeynayaan ma ilaahay dartiiba fi sabiilillah miya si aan u tukano ma si aan u tukano ma ah waa si aynan weligeena xor u noqonino la inoo gadaal inooga haayo waan tii mithaalki carabiga u dhahay man la yamliku quutahu la yamliku qararahu qofkii asaga raashinkiisa aan haysanin go'aankiisa asaga male go'aanka waxa iska le qofka raashinka siinay marag waxay noo siinayaan raashinka wax kale ma ah inma nud'imukum liwajhi Allah la nuriidu minkum jazaa'an wala shukuran ma ah inma nud'imukum inaad saan ahaataan waa hormar aydan gaarin aydan heshiinin horay aydan u soconin waligiin ba saan ahaada markaas xagga u bud 6 soo kama soo wareegin 6 kaasna waxa la dhigi karaa si reebanu sadaan akhrinay nabi Muuse soo dadkii xurriyada uu gaarsiiyay reebanu Israa'iil soo lama rabin inay nabiga raacaan alxamdulillah dhahan wax yar markay sii socdeen oo fircoon la halaagay waa dadkii hadda webi ka soo gudbay hadda nabi Muuse uu la socdo maxay yiraahdeen ya Muuse ij'al lana ilaahan kama lahum aaliha dad bay soo mareen oo sanam caabudaay waxay dhaheen Muuse annagana sanam noo sameey meesha noo soo dhig annagana caabudnay nabi Muuse wuxuu ku yiri ghayra Allah abghiikum ilaahan wa huwa faddalakum ala alamin ilaahi ghayrkii ma idin sameeyaa waa dadkii hadda soo gudbay markaas markii waxay yiraahdeen lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan ilaahi baan kitaab ka soo qaadan baad nagu haysaaye horta ilaahi kitaab ka soo qaaday ilaa aad naga tusto waa kan aad dhahdid ma ku rumaynayna maxay ka qaadeen ayagana nabi Muuse markuu ku daaray ilaahi wuxuu ka bari wuxuu rabbigayow inni la amliku illa nafsi wa akhi dad meesha kuma hayo aniga ibr inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin anaga dadkan ilaahuna kala saar waan isku dhunsanahay ayaguna meel kale u socdaan anna meel kale u socdaa ilaahuna kala saar ilaahi wuxuu ku yiri innaha muharramatun magaala ay degaan oo ku sugnaadaan xaaraan ay ka tahay 40 sanatan 40 sano yatihuna fil ardi dhulka ay ku wareersanaanayeen ballantaas laga qaado hadda inaga meeqan joognaa 60 sanatan yatihuna fil ardi bal 60 sano ee soo wareer ma maxay ila dawladihii hadayna ka tagin system degan oo siyaasadeed oo ummaddu intay isku doorato ay horay ugu sii socoto ummadaha kale waa arteen qolo meel bay soo gaarsiisaa kuwa kala wareega kuwa kala sii wareega dhagax baa la kor saaraa laakiin inaga maxay ugu dhacay 9 sano ugu horeysay ee xurriyada yaa waxoogaa waa la isdooranaya si la isu dooranayeen odayaasha yaqaanee si la yaab leh markaas waxa loo bixiyay dawladii maxay u bixiyeen dawladii musuqmaasuqa haye dawladii musuqmaasuqa maxaa ka dambeeyay dawladii militariga kadibna maxaa ka dambeeyay qabaa'ilkii isleeynaay haye isku xisaab waa meeqa sano 9 sano oo ay u bixiyaan musuqmaasuq 22 sano oo shuuciyad iyo hanti wadaag cilmiga ku dhisan ah oo aan aqeedadeena waafaqsanayn 30 sano oo ka dambeysay oo burbur iyo baaba ah marka waa 60 sanatan waxaynu dabaal degnay maanta 60 sanatan yatihuna fil ard
lixdan sano oo wareersanayn marka wareerka ma ka baxnaayo bismillaahir rahmaanir rahiim taan dhahno oo aan dhinacyada fiirino oo aan iswalaashano oo taariikhdan dib u akhrino oo wixii lagu rafaado waa laga leexday Soomaaliya ku maamaadan dab markii lagu gubto dambiskiisa laga carnay dambiskiisa ma ka carnaayo ummad Soomaaliyeed oo diinteeda iyo aqeedadeeda haysata oo islaamnimadeeda ku dhaqanta oo walaalo islaamka ku ah oo qabyaalada iyo nin jeclaysiga iyo masaalixda gaarka iska dayso oo kor u kacda si lagu asaasay ayaa la rabaa laakiin haddaan sidii uu ku wadno oo meeshii aan ku dhamayn haddana aan ka soo bilowno lixdankii soo hadda lama dhihin shariicada xagga lama aadin hadda waxaa qoran oo leeyahay wixii yani ku meel gaarka dastuurka qabya qoraalka laga waayay lixdankii waxaa loola noqonayaa kii lixdankii marka waa koo haddana ka soo bilow lixdan kale oo yatiihuna fil ardi wixii inta laga waayo lixdankii loola noqonayaa oo maxaa lixdankii isku baahi ma nihin isku waqti ma nihin hadda dhalinyarada joogta iyo odayaasha jooga maxaa inoo dan intay dhahaan wadankeena sideebaan ugu heshiinaa oo walaalo ugu noqonnaa ma la samaysto ma la samaysan maxaa jidkiiba looma socdo sidee noqon lahayd in islaamka iyo hanuunka iyo diinta la raaco ma la ogolaadee lama ogolo oo maxaa loo ogolaan laayahay waxaa loo ogolaan laayahay awoodda aad isku halaynaysa inaad wax ku noqoto aad rabtidba awood Soomaaliyeed ma ah marka maxaad sameynaa adiga marka awood Soomaaliyeed haysan saan waa lagu dhigay hadda dadkeen waxoogaa walwal waxay ka qabaan maalmahan yani doorashooyinkan soo socda iyo sidee wax noqon doonaan iyo goboladan isdiidan iyo baarlamaanka isku khilaafsan yahay iyo waxyaabahan la sheegsheega horta kulli markaad isku dartid innaga inaween soo dhex bixin ummadda Soomaaliyeed ikhtiyaar ayadoo ay leedahay wax ay ku samaysatay ma ah niman kale ay noo sameeyay maalinba geed ayay ina geeyaan saan yeelahay dadka marka cabsida ka qaba waa la burburayaa saana la noqonayaa horta markaad burburayso ina adigu wax ku dhisayno ka burburayaan ayaa lagu burburaa laakiin adna wax ma dhisana waa lagu dhisay kuwii ku dhisayna inay burburto intan yarta maba rabaa maxay u burbureeb bacaad yar oo garoon lagu dheelaa Soomaaliya loo sameeyay bacaad bas garoonka weynaa ma ayaa ilma dhalinyaro yaqaanaan Soomaalidan waxa loo sameeyay maxaa loo yaqaanaa garoonka yar xaafada garoon bacaadka lagu dheelayaa ka weyn stadiumka ma ah Soomaalidan waxa loo sameeyay bacaadkaas yarka ah magacina waa loo kala bixiyay maamulo oo magac leh ka laakiin hoos wixii maamul lagu yaqaan aan ahayn bacaadkaas asaan isu shaaftaynayn shaafta lakac kana lakac saan u laha garoonkii weynaa ee caalamiga ah ma soo gaarin dadkii marka bacaadka iska laha way joogaan bacaadkoodana way ilaashanayaan inaga waxa la rabaa Soomaali hadaan nahay sidii bacaadkan uga bixi lahayn si kale oo bacaadka uga baxaynana ma jirto ilaa inaga in is ogolaano maxaa la inoo kala hayaa horta maxaa la inooga dhaadhiciyay idinku ma heshiin kartaan idinku isuma imaan kartaan idinku mis aamini kartaan way hadaan inagu is aaminin yaa in is aaminsiinaya cid in is aaminsinaysa ma jirto haye maxaa la rabaa marka inaydan is aaminin ayayba hawshu ku socotaa hay is aaminina oo way maxaan sameeynaa saan iska ahaada maxaa idin ka maqan meeqa mar aan qisadii oo Suudaan ay sheeynaa inta taariib soo socdo inta Suudaan ugu soo maray ya arday baa jaamacadda u baneeyay meesha uu seexanay ninkan uu boogay isbuuca meesha lagu hayo oo lagu qaqarinay ardayna meel iska seexanay markii dambe uu warniyo dhageyso aan meesha ku rafaaday adna meesha u socotay ama Liibiya taariibkaaga sii wado ama Soomaali u noqoniyo aniga sariirteeda waa u baahanahay xur aad maalanto dhaaday ani maxaa iga maqan waa cunooya waa cabooya waa jiifaa marka hadaba Soomaali ay bacaadka inoo tahay waa cunoynaa waa cabooynaa maxaa naga maqan bacaadkan iska joogno hadayna sidaan xal ahayna gobol kasta Soomaaliyeed iyo dhalinyaro ka Soomaaliyeed ee meel ka soo joogto intaan fikirno aan dhahno sidaan dan inoo ma ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed maxay la meeqa sano hadda joognaa meeqa sano oo saanana hadda mesela inta saan leeno kala ahay meeqa 30 sano soo saas ma 20 sano hadda ugu dambeysay oo saan lisu natiijo lama gaarin haday saan si ahaatana natiijo kale la suuma jira saan laysi ahaanay kolba xaq warad ilaa runta looga soo daadago oo ah mu'miniin soo matidiina yaa ayyuhalladina aamanu dadki ilaahay nabi rumeeyo aamanu iimaanku wuxuu keenay moogta quraanka inaan rumayno oon ku dhaqanno marka jazaakumullahu khayr aad ma santiin xurriyada iyo istiqlaalka aad aan ugu faraxsanahay inaan xor ahaanana waan jecelnahay su'aashu waxay tahay sidaan xornimo ma ahe xornimo la yaqaan oo Soomaaliyeed siday ku dhalan lahayd waa isu imaanshaha ummadda Soomaaliyeed maalinkaas waxaan dhihi karnaa xurriyad ayaan gaarnay laakiin inta saan loo kala qoqoban yahay waa hal iska heeso dib male hees waxba ayada
maanta oo dhan goormaan ladnaaday lagu hayo mana aan ladnaanin mana aan lulanin maxay yahay mana aan liibaanin waakaas maxaa lagu liibaanishay waakaas ummadii baa wada baaba'san waa kana marka almuhim yani waxa loo baahan yahay marka intaan taariikhda akhrino reer banu Israa'iil oo kale inayna noqonin oo ilaahay xurriyad markuu na siiyo xurriyadaas ayada ah inaan ilaashano oo xor ummadaha sidooda waxa la gumaystaha ama diktaatooriyada ku kora xurriyadda ma bajaclab maxaa yeelay xurriyad way uga dartaa maxaa yeelay umayna baranin reer banu Israa'iil soo madax lagama garaaci jirin waxaana Muuse la soo diray waa in xoreeyay kitaabka Tawreeda ku dhaqma markaas ay diideen waxay dhahay kuma dhaqmayno saas miya ushi ay yaqaaneen loo soo qaatay marka dhagax meeshan intii la soo fujiyay yaa korkooda la keenay wa idna taqna al-jabala fawqahum kaannahu dhullatun dhagax baa la kor keenay markaas waxa la khuduu ma aataynaakum biquwa ma qaadanaysiin soo la soo deynaa qof cabsan jiri hadii la cabsiyo muxuu dhahaa hayale waa moogtay la cabsidu yaqaana la keenay qaaluu samicna wa ogolaanay ay soo istaageen ورفعنا فوقهم الطور كرة الله وقاضي قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل إلى أشياء مقنة مركز حرية درهد وحي كانتا حرية إن لو بدل مركز دنبه إلا يسوي واحد قدبه مركز حر إنها تاي معناها هذا معها إنها دتك عين يسد حر إنها تاي معناها هذا معها إنها دتك واحد قدبه يسد حرية دادو وحي كويك تاي قفك كالحرية دي سماشي كبل لعبته هذه قرون كاغير يا قفك اللي دحيس حر أيات كوتها كورة دارد لكن ما نكاد قفك أما كشاكتو أما أدو حجار سيسو haddana aad sheeganayso xor ayaan ah Facebook ku waxay ku soo qorayaan dacaayad iyo hadal xun iyo saas markii la hadlayo ruuxan maxaa u qoraysaan wuxuu ku leeyahay soo xor ma ii xor ma tiid xor ku tahay ma inaad dadka caadada xor u tahay ma inaad dadka saas xor waxa u tahay qiyamkaaga iyo akhlaaqda iyo mabaadida inaad ilaashato jazaakumullahu khayr intaas daan tacliiq uga baxano barnaamijkan oo masaajidka runtii isbuuci hadda uu ku jiray social media dal iyo dibadba way soo dhaweeyeen wayna ka soo qayb qaateen kuwana way ballan qaadeen inaad marka anaga maadaama aan nahay dadkii magaalada joogay saldhiga u ahaa barnaamijkan inaan yani qaybta ugu weyn ka qaadano oo aan isku tashano haddaynu nahay masjidka iyo jamaacadiisa iyo dariskiisa iyo magaaladiisa dadka kale ahlu khayrka ah ee bannaanka inaga jira runtii aad ay u mahadsan yihiin ama dibadda dadka jooga ha ahaadeen ama gobolladeena kala duwan ha ahaadeen way soo xiriiraan wayna ka qayb qaadanayaan wuuna dhismaya hadduu ilaah yidhaahdo marka lambarradina halkaas inoogu yaallaan warqadihiina waa la keenay qaarkood oo la soo qoray dadka soo qoray jazaahumullahu khayran way mahadsan yihiin tabarucaadka lambaradana waa laga qoray meesha ay ku soo direen halkan ay ku qoran tahay anaana haaya lambaradaasoo yani wixii ku soo dhacay message-kiisa intuu ku soo dhacaya hadda marka bal inta joogta wixii aan isku qorqornay waa wixiise halkii dollar isku dari jirteen qof kasta intuu ku dari karo intuu ku soo daro lambarkaas ugu koreeyo ee waaweyn intuu ku jira hadda ku goobataan oo ku soo shubtaan shanqadhiisa lama joogi kartaan qalowdiis marka waxaa idinka rabaa inay maqashiisaan qalowdiisa halkan uu ka soo dhici doonaa dadka intiinan joogto horta inaan ku halkiina dollar ee aan u bixinay dooral jumca halkii jumcada aan ku soo sadaqaysan jiray masaajidka inaan soo didirno kadibna Facebook ku jira social media ku jira intii la sii gaarsiiyo isbuucan insha Allah taala waan bilaabaynaa masaajidka qorshihiisa iyo dhismihiisa isbuucada marka masaajidku waa saas ku xirmay waxaan rajeynayaa insha Allah taala asagoo qurux badan oo dhismay inaan isugu imaan doono oo furitaankiisa soo 3 dabaq ah oo qurux badan waa kaas hay'ad maxay nidahay shaqadiis waa maqluuc aad u maasantiin jazaakumullahu khayr waa maasantiin